tani waa jasiiradda Beernaanta waa cad dhul ah oo dhagaxyo iyo baraf ka samaysan oo ku taala waqooyiga fog ee gobolka Siberia. waxay u egtahay jarar baraf ka samaysan oo si lama filaan ah uga soo dhex baxaya badweynta Arctic-ga. sidaad qiyaasi kartidna meeshani waa mid ka mid ah goobaha ugu dambeeya ee adduunka ee aanad jeclaan lahayn in lagugu cidleeyo. sanadkii 1902 saynisyahan weyn oo u dhashay dalka Ruushka ayaa dhab ahaantii la kulmay xaaladaasi oo ku dhex goodoomay jasiiradana. tanina waa sheekadiisii silaca iyo naxdinta badnayd ee uu halkaasi ku maray. jiilaalkii sanadkii 1903 dhaxantii darnayd ee ragaadisay boqortooyada Ruushku maysan ahayn dhibteedu keliyata mid ka imanayso keliyata barafka iyo dabaysha daran ee waxaa u sii dheeray baqdi weyn oo laga qabay in maalin ka mid ah dalka Ruushka uu ku lumay mid ka mid ah saynisyahanadii ugu magaca weynaa oo lagu magacaabi jiray Baron Edward van Toll. bilooyin badan ayaa laga joogayay xilligaasi markii ugu dambeysay ee war laga maqlo. wararkii ugu dambeeyey ee laga helayeyna waxa waa mid sheegayey in isaga iyo 3 ka mid ah saaxiibadiisii safarka ku weelinayay ay caafimaad qabaan kuna sugan yihiin jasiiradda Beernaanta. jasiiraddani waxay dhacday waqooyiga dhulka Siberia. xilligaasna waxay qorsheynayeen inay dib ugu soo laabtaan dhulka beriga. warqadaas waxaa ku qornay taariikhda 26 Oktoobar 1902. tan iyo markaasina wixii ka dambeeyeyna waxaan aamusnaanahayn oo laga hayay muusan jirin, taasoo keentay in akaademiyadda sayniska ee St. Petersburg ay argagaxdo. Edward ma ahayn keliya sahamiye riya caydhsanaya oo quryata ee waxa uu ahaa aqoonyahan dhulka dersa geologist oo aad loo yaqaano loona ixtiraamo. waxaanu ka soo jeeday qoys boqortooyo ah, isla markaasina waxa uu astaan u ahaa sharafta qaranka. in isaga la waayaana maysan ahayn musiibo quryata, balse waxay u muuqatay fadeexad weyn oo qaranka ku dhacday. sidaasi daraaddeed waxaa loo baahnaa qof naftiisa u hora oo baadigoobkiisa u banbaxa. qofkaasina waxa uu noqday sarkaal dhallinyaro ah oo 29 jir ah kana tirsanaa ciidanka badda, magaciisana lagu magacaabi jiray Alexander Kolchak. Alexander waxa uu ahaa wiil hami weyn leh, maskax furan una dheer tahay daacadnimo xad dhaafi. wuxuu hore ula soo shaqeeyey Edward, waxaanu la socday oo ku weelinayay isla safarkani uu saynisyahankani ku lumi doono kahor intaanu isagu dib ula soo noqon markabkii safarka waday. taasina waxay ka dhignayd in deegaanka uu si fiican u yaqaanay khataraha jirana uu si fiican u dhooxay. waxaanu ogaa inuu jaaniska ku guulaysan karayaa uu yahay mid aad u yar, laakiinse taasi waxba kamaysan dhimin go'aankiisii. markii ay akaademiyaddu u baaqday dad isxilqaama oo mutadawiciin ah, Alexander durtadiiba wuu soo istaagay goobta isagoona aan ka labalabaynaynin. haddaba intayna arrimuhu halkaasi gaadhinba iyo ka horba intaanu safarka u anbabixinba, Edward muusan ahayn nin fudud oo khiyaali ku nool oo naftiisana u biimeeya halis aan laga fiirsan. sidaan hore u soo sheegnayna waxa uu ahaa saynisyahan aad loo qadariyo, sidaasi darteed waxa uu ahaa nin taxadar badan oo wax kastana miisaama. balse iyadoo sidaasi tahay haddana xitaa dadka caqliga badani kama suulaan inay yeeshaan hami madax mara. hanka Edwardna wuxuu ahaa dhulka qarsoon ee loo yaqaano Samalaya Sanikofa. muddo 10 sano ah waxaa deegaanada Arctic ka dhex jiray hadalhayn ku aadan dhul daahsoon oo lagu dhex arkay jasiiradaha loo yaqaano New Siberian Islands shishadooda. ugaadhsatadu waxay ka sheekayn jireen dhul madow oo ka muuqda darafka ugu shisheeya ee badda, kaasuna ahaa dhul baaxad leh oo aan marnaba khariiradaha waayadaasi la isticmaali jiray lagu arki jirayna. sahamiye la odhan jiray Yoko Sanikov ayaa sheegay inuu dhiisa ku arkay dhulkaasi isagoo baraf dhex lugaynaya sanadkii 1811. kadibna waxa uu sheegay inuu khariiradiisii watay uu ku calaamadsaday, waxaanu la baxay dhulkaasi magaca dhulkii Sanikov. hadalhayntaasi yar iyo sheekooyinkaasi la yaab kale ee laga soo warin jiray goobtaasi ayaaba ku filnaaday Edward. kadibna gebi ahaanba waxa isku qanciyey inuu dhulkaasi jiro. marka laga tago rumaysnaantiisa inuu jiro dhulkaasi, waxa kale rumaysnaa inuu dhulkaasi yahay furaal lagu fahmi karo cilmiga dhulka ee Arctic-ka. sidoo kalena laga yaababa inuu yahay malaha dhulkii ugu dambeeyey ay ku badbaadeen noolayaal hore oo dhulkani hore ugu noolaan jiray. sidaasi daraaddeed sanadkii 1899 ayay akaademiyadda sayniska ee St. Petersburg u soo jeediyeen inuu hogaamiyo safar lagu tegayo jasiiradaha New Siberian. kadibna Edward kamuusan labalabaynba durtadiiba wuu aqbalay. kadibna markii uu aqbalayna waxa la bilaabay dhismaha markabka Saarya, kaasoo ahaa markab casri ah oo isugu jira kuwa shiraaca ku socda iyo kuwa uumiga ku shaqeeya ee barafka jabiya.
waxaana si gaara loogu dhisay safarkan Arctic-ga waxaan u ahaa hooy iyo shaybaadh ay ku dhex shaqeeyaan shaqaalaha iyo saynisyahanadu. ugu dambayntiina 21 Juun sanadkii 1909 markabkii Saria ayaa ka ambabaxay magaalada St. Petersburg iyadoona uu Edward hogaaminayo kooxda dhinaca cilmi baadhista halka ninka kale lagu magacaabi jiray Lieutenant Nicolia oo ahaa badmaaxaruga cadaayihina uu markabka maamulayay. safarkoodu waxa uu wacday dhanka galbeedka ee dalalka Scandinavian-ka iyagoona markii dambena dib ugu soo wareegay dhanka waqooyi si u dhex muqoorsan qaboobaha Arctic-ga. markii hore xaaladdu waxay ahayd mid degan oo is ixtiraam ku dhisnayd. Nicolia waxa uu dhowrayay kala saraynta maamulka, Edwardna waxa uu qadarinayay khibradda badmaaxnimo ee Nicolia, laakiinse xidhiidhkaasi muddo badan muusan sii soconba oo durtadiiba waa xumaaday. intuu markabka Saria uu ka xayirnaa barafka jasiiradda Benefia oo ku taala bartamaha xeebaha Siberia ayuu khilaafkoodii gaadhay meel aan laga soo noqon karin. Edwardna waxa uu markaasi xilka ka qaaday kabtankii maamulayay markabka ee Nicolia isagoona jegadiisii u dhiibay sarkaal kale uu arkayay inuu yahay qof dabacsan oo si fiican isku afgaran karaan kaasoo ah Lieutenant Fyodor Martinsen. isbedeladan iyo isjijiidkan maamulka dhexdiisa ka socday waxa si weyn uga soo dhex muuqday sarkaal kale oo muujiyay karti dheeraad ah isagoona noqday qof aan laga maarmi karin intuu safarku socdo. ninkanina waxa uu ahaa isla Alexanderka dhowr sano kadib uu istaagi doonaa soo badbaadinta Edward. Alexander waxa uu ahaa badmaaxay iyo cilmi baadhi karti leh. bishii Abriil ee sanadkii 1901 waxa uu Edward ku yeelinayay socod ay ku marayeen gaadhi barafyo si ay si dhuun daloosha ugu soo ogaadaan halka uu ka bilaabmo webiga Taymara. tanina waxay u ahayd guul kale u soo hoyatay intii ay si tartiiba u dhex musaaxayeen xeebaha waqooyi ee Siberia. markuu guugii isku bedelay xagaa barafkii ayaa bilaabay inuu dhalaalo laakiinse markabkii Saria muusan helin fursad mar kale uu ku dhaqaaqo ilaa laga gaadhiyo bisha Sebtembar. Edwardna waxa uu ku howlanaa markaasi inuu dardadgeliyo baadigoobka dhulka loo magac baxay Samlaya Sanikova waxaanu soo gaadhay aagga jasiiradaha waaweyn ee dhaca koonfurta goobtii u malinayay inuu markii hore dhulkaasi ku yaallo. jasiiradahani waxay ku yaaleen intii u dhaxaysa badda Leptev iyo badda Siberia ee bari. hase yeeshee muddo gudaheed isaga laftarkiisa ayaaba waxa uu bilaabay inuu qirto in laga yaabo in malaha dhulkaasi uu raadinaya uusan ku oolinba halka uu ku tuumayo. markaasi ayuunu go'aansaday inuu attentionkiisa u weeciyo shay jira oo la taaban karayo raadintiisa taasoona ahayd jasiiradda Bernard. jasiiraddanna waxay u dhoweyd halkay joogeen waxayna dhacaysay dhanka waqooyi ee jasiiradahaasi. Edwardna waxa uu bilaabay inuu is yidhaahdo malaha dhulkii aad muddada dheer raadinaysay ee Sanikova waxa uu dhalanteed iyo indhisircaadun waxa uu qaatay inuu u dhowdaayay inay ahayd isla jasiiraddan in ku magacaabo Bernard oo waqtiyadii hore indhaha ugu muuqan jirtay uun si khaldan. laakiinse Edward waqtiga ayaa ku yaraaday bilooyinkii barafku waysan di'i jirinna xilligaasi way sii dhammaanayeen. sidaas daraaddeed Edward waxa uu bilaabay inuu soo ambabaxo dhinacaasi jasiiradda. inkasta uu jasiiradda u soo ambabaxay haddana barafka cusub ee da'ayay wakhtigaasi jiilaalka waxa uu run ahaantii mid qaro weyn waxaana ku khasbay markabkii Saria inuu mar kale ku bariyo jasiiradda Kotolnia oo u jirta qiyaastii 300 kilomitir jasiiradda Bernard. intii lagu guda jiray jiilaalkaasi Edward waxa uu qorsheeyay safar ugu gaadhayo jasiiraddaasi gaadhi barafyo ay jiidayaan waxaana uu go'aansaday inuu tago xilliga jiilaalka isagoona markabkii Sariana ku amray inay Bernard ugu yimaadaan marka la gaadho xilliga guga. waxaanu jaangoy waqti go'an oo ahaa 3 Sebtembar 1902 haddii aysan xilligaasi ugu yimanna inuu isagu dib ugu soo noqon doono dhulweynaha Siberia oo ahayd halkuu markabku ku xayirnaa. bishii Juun 1902 Edward waxa uu ka ambabaxay jasiiradda Kotolnia isagoona wataa 3 nin gaadhi baraf ay saaran yihiin sahay rasaas kooban iyo eeyo. Edward waxa uu ogaa inay noloshoodu ku xidhan tahay in markabka Saria uu halkaasi ugu yimaado balse fursadda uu markabku ugu soo dhex mari karayo barafkaasi aad bay dhab ahaantii u yarayd. waxay u baahnaayeen kooxda markabku inuu barafku ka khafiifo balse uusan xitaa hadduu doonaba yuusan ka dhalaalin dabayshuna ay jihadeeda si naxariis leh u beddesho. laakiinse dabeecaddu sidii looga bartayba uumaysan naxariisan. bilowgii bishii Luulyo iyo August oo dhan Fyodor iyo shaqaalihii Saria waxay si wulaayeen intuu barafku ka dhalaalayo. markii haddaba ay durtadiiba barafkii waxoogaa yaro kala dhalaalay dabaylo xooggan ayaa markabkii u kaxaystay meel ka fog jidkii marinkoodu ahaa taasuna ku khasabtay inay maalmo badan ku lumiyaan inay dib ugu soo laabtaan booskoodii. markii ay ugu dambayntii dhaqaaqeenna waxay isku dayeen inay raacaan xeebta waqooyi ee jasiiradda Kotolnia balse waxaa mar kale hor istaagay baraf aad u qaro weyn oo aan la mari karin. dabadeedna waxay isku dayeen
inay maraan marinka koonfureed dhowr kilomitir oo quryaata ayaana dhinacaasi uga suurta gashay inuu socdaan ka hor intaysan mar kale haddana ka hor iman derbiyo barafay. markii ay bishii Sebtembar soo dhawaatay, Fyodor waxa isku dayay fursadiisii ugu dambeysay isagoona waqtigii loo qabtay uu yahay gabagabo dhuxul dhagaxdii markabkuna ay gabaabsiisay tahay ayuu markabkii Saarya mar kale u jahaystay dhanka waqooyi ee jasiiradda Beernaanta. balse nasiib darro mar kale markabkii haddana waxay soo istaagay baraf aad u qaro weyn oo aan la mari karin. markan fursadan buu hadhay miisan jirin haba yaraatee. markabkii Saaryana waxa uu soo gaadhay meeshii ugu dambeysay awooddiisa ku ekayda manuusan haysan dhab ahaantii shidaal uu ku sii socdo meel ammaanahna oo ugu xidhan karana si ugu dhiirado inuu barafka ku dhex jiraana aad buu uga fogaa. sidaasi daraaddeed iyagoo aad u niyad jabsan oo u tiiraanyaysan, Fyodor iyo badmaaxintii la socday dib ayay uga soo laabteen booskoodii hore iyagoona jasiiraddii Beernant iyo Edwardna gadaashooda kaga soo tegay. si kastaba ahaatee raggii markabka Saarya si fudud isku maysan dhiibin, inkastoo dhaxaniyo daal ay la dhibaatoonayeen haddana maysan doonaynin inay saaxiibadooda dhimashada ugaga tagaan halkaasi iyagoo aan bixin dadaalkoodii ugu dambeeyey. xitaa kadib markii ay ka quusteen gaadhitaanka jasiiradda Beernant waxay meelo kala duwan kaga tegeen rag heegan u ah inay sugaan Edward hadduu maruun uu soo muuqdo. hal nin waxay uga tegeen gacanka Fadiyavaski, mid kalena waxa uu ku hadhay Kefesoki iyagoona sahay u wataa diyaarna waa inay u gurmadaan Edward hadduu soo laabto. balse toddobaadyadii waxay isku beddeleen bilooyin welina muusan jirin wax raad ah oo laga hayay isaga. markii bishu ahayd Disembar 1902 intii badnayd ee badmaaxinta ahayd waxay ku laabteen St. Petersburg kadib markii ay markabkoodii Saarya dib ugala soo baxeen xeebaha waqooyi ee Siberia. markii ay soo gaadheen St. Petersburg waxay gudbiyeen warbixino sheegaya in horumar dhanka cilmiga laga soo sameeyay. khariirada Arctic-na la dhisay, balse ninkii hawshan oo dhan bilaabayba uu weli ku goodoosan yahay meel ka mid ah cadaanka barafka dhexdiisa iyadoona isla markaasina aan la ogeyn inuu nool yahay iyo in kale midnaba. markii ay magaalada ku soo laabteen, akaademiyadda saynisku waxay u kala qaybsantay laba dhinac. qaar waxay rumaysnaayeen inuu Edward dhintay oo uusan noolaynba, halka kuwa kalena ay diidanayeen xaqiiqadaasi inay aqbalaan. 9 Disembar 1902 waxay isugu yimaadeen inay go'aan ka gaadhaan talada xigta ee la qaadi doono. waxaana loo yeedhay Alexander iyo Fyodor si ay talo uga dhiibtaan arrintani murugacsan. Fyodor oo indhihiisa isagoo ku soo arkay siday hawsha u fashilantay waxa uu ku taliyey inaan wax tallaabo dambe la qaadin, isagana waxay ula muuqatay khatar aan marnaba laga soo kaban karin. balse Alexander weli muusan diyaarsanaynba inuu xaqiiqadaasi aqbalo oo uu Edward xabaalo. muusan ahayn qof aan aqoon u lahayn dhibka Arctic-ga. marar badan ayuu u soo joogay indhihiisana uu ku soo arkay, laakiinse waxa uu aqoon u lahaa dabeecadda Edward. waxaana maskaxdiisa ka bixi lahayd sawirka nin weli halkaasi si dhabar adayg leh ugu dul qaadanaya duufaanada barafka dhexdooda una soo socda dhanka koonfurta isagoona ku socda dareenkiisa iyo wixii raay ugu hadhay sahaydiisii gurmadna sugay inuu helo. sidaasi daraaddeed markii akaademiyadu ka labalabaysay, Alexander ayaa hore u soo dhaqaaqay waxaanu isku xilqaamay inuu hogaamiyo safar cusub. safarkaas oo ku tiirsanayn maraakiib ama saadaal ku saabsan goortuu barafku dhalaali doono. taa beddelkeedana waxay mari lahayn dhulka iyo barafka iyagoona wataa gaadhi barafyeeye doon yar oo ah kuwa nibiriga lagu ugaadhsado. waxayna raadkiisa ku guri lahayn xooggooda eeyaha iyo go'aan adeegooda. qorshuhu waxa u muuqday mid waaliya, laakiinse si uunbaa loo oggolaaday. bartamihii bishii January sanadkii 1903 Alexander waxa helay dhaqaalihii iyo taageeradii rasmiga ahayd u baahnaa. waxaanu fariin telegram u diray gabadhii u doonanayd isagoona u sheegay inuu dib u dhigay arooskeedii, kadibna waxa uu jahaystay dhinacaas iyo barafka. markaasuna Alexander waxa uu si rasmi u la wareegay heeganka kooxda gurmadka ee 1903 baxayay. waxaana durtadiiba caddaatay inuusan safarkan ahayn mid caadiya. barafku waxa uu dhalaalayay si aan la saadaalin karin. markabkii Saaryana ay wateen waxay kaga soo tageen meel cidla ah. kala badh xubnaha akaademiyaduna maysan aaminsanaynba inuu gurmadkani guulaysan doono, laakiinse Alexander taas danka muusan lahaynba. isaga ahaana guuldarradu marnaba maysan furnayn, waayo waxuu rumaysnaa inaanu Edward uusan dhiman. markii uu anbabaxayna waxuu marka hore aaday magaalada Meesan ee ku taala xeebta badda cada, halkaasuna ka bilaabay inuu qorto rag adkaysi u leh wejihi karayana dhibka ku soo socda ee ku soo fool leh. waxaanu markaasi soo xulay 6 nin oo ka mid ah qabiilka Boomariska, kuwaasoona ahaa ugaadhsato xeebaha deegaanku ahaa, yaqaanina siraal loogu badbaado dhulkani Siberia
sidoo kalena yaqaanay sida loo akhriyo dhaqdhaqaaqa barafka. haddaba markii ay raggani loo sheegay inay raaci doonaan gaadhi barafyo ay jiidayaan iyo doomo, kadibna ay sii dhex mari doonaan dhulka ooman ah ay barafaysan, marnaba kamaysan labalamayna keliyaata madaxa ayuunbay ruxeen, waxayna ku soo diyaargaroobeen xilligii aanbabaxa. waxyar kadibna waxaa ku soo biiray 2 nin oo rugcadaaya oo markabkii saariga ka tirsanaa oo lagu kala magacaabi jiray nikafor oo ahaa sarkaalka rarka u qaabilsanaa markabka, iyo fesili oo ahaa hagii markabka. nikafor maadaamuu khibrad weyn lahaa hadalka lamuusan ka gaban jirinba, waxaanu alexander si cad ugu sheegay inaan loo baahnaynba in doonyo cusub laga soo jiido tuulo webiyeedka meesan. taa beddelkeedana waxaa ku qanciyey inay soo jiidaan doon yar oo ah kuwana beriga lagu gaadhsado oo taalliyey meel u dhow halka markabkoodii saariya ay kaga soo tegeen oo ahayd gacanka thsi. gacankani waxauu si toosa koonfurta uga xigay jasiiradda bernant, waxaanu dhacayay beriga sayberiya. markii ay dhanka beriga u soo ambabaxeen, iskudabaridka saadku waxau noqday qarow dhaba, waayo alexander waxuu ku khasbanaaday inuu hal mar soo wada helo eeyo, gaadhi barafyo, cunto, rasaas iyo dhammaanba agabkii lagu talagalay qaboobaha aartiga, isagoona islamarkaasina orod kula jira wakhtiga. si kastaba ahaatee, horaantii bishii maarja dhammaanba 17 xubnood ee safarka baadigoobka ka qaybgelayay ayaa isugu yimiday magaalada yukutuski, waana meeshuu safarka dhabtaa uu ka bilowday. waxay raaceen webiga aldan iyo gacmada neera ilaa ay ka gaadhayaan ferkhoyonaski. bil kadibna oo ku beegan 10 bishii abrilna waxay soo gaadheen tuulada kasaaji oo ku taalla webiga yana. halkaas markii ay marayeen ayayna ahayd markii uu alexander maqlay war aanu ku farxin. waxa soo baxay dhibaatooyin ku aadan sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa doontii nibariga ee taallay gacanka thsi. haddii doontaasi la waayana micnaheedu waxay ahayd inuu gurmadku halis ugu jiro inuu fashilmo xilli uusan weli si rasmiyahba u bilaamin. alexander waxauu markaasi u degdegay dhankaasi gacanka, isagoona rajaynaya inuu dhibkaasi soo xallin doono. balse markii uu soo gaadhay goobta waxa uu arkay arrin cajiiba oo la yaab leh. waxa uu arkay in cid kaleba hawshii uga sii hormartay oo sii dhammaystirtayba. doontii way diyaarsanayd, waxaana meesha ku sugayey nin aan marnaba laga filin meesha oo ahaa fayadoor. inkastoo aan la hubinba oon la ogeyn inuu alexander uu halkaasi kula kulmi rabay fayadoor iyo in kale, haddana waxay u ahayd isaga himilaya rajo weyn oo u soo kordhay. fayadoor waxa uu halkaas u joogay inuu dusha kala socdo kala dirista ugu dambaysay kooxda baadigoobka. waxyar kadibna markii doontii la xaqiijiyey waa la raray, eeyihiina waa la quudiyey, raggiina waxay isku diyaariyeen inay ambabaxaan. intaasi kadib alexander waxa uu wacday dhanka waqooyi, isagoona ku wajahan dhinacaasi jasiiradda bernant. horaantii bishii May ee sanadkii 1903 kooxdii saamintu waxay soo gaadheen degsiimadii ugu dambeysay ee dhanka waqooyiga kaga taalay bariga dhulweynaha Siberia. meeshaas wixii ka dambeeyana dhul dambe muusan jirinba, yacni bad barafooday ay dul soconayaan. waxa keliyaatay halkaasi jirin waxa waa baraf, dabaylo iyo rajadii fogeyd ee jasiiradii ay sanadkii hore tegeen. 5 bishii May alexander iyo kooxdiisii waxay u gudbeen midowga badda barafka ee aan la aqoonin. waxay ahayn 17 nin iyo 10 gaadhi baraf oo mid kastoo ka mid ahna ay jiidayaan 13. doontii nibiriga lagu gaadhsanayna waxay dhab ahaantii dhex jiidayeen barafka dushiisa, iyadoo inay saarantay 2 gaadhi baraf oo waaweyn. waxaana hawshaasi adag u babacdhigay soddoniyo oo u khaasa oo keliya towna inay jiidaan doontaasi iyo 2 nin oo hagayay. inkasta oo eeyaha lagu yaqaano dulqaad la yaab leh, haddana dhibka jidka ka jira ogeesa waxay diideen inay shaqeeyaan wax ka badan 6 saacadood maalinkii. nasiib darase kooxda gurmadku maysan haysan fursad ay ku nastaan. socdaalku waxa uu dhici jiray xilliga habeenkii, waayo barafku waxa waa mid aad u adkaada xilliga habeenkii, waxaana fudud in lagu dul socdo. maalinkiina waxay ku nasan jireen taandhooyinku meel gaadha. xilliga habeenkii heerkulku waxa uu hoos ugu dhici jiray si aan caadi ahayn, ilaa uu ka gaadhiyey heer haddii qayb ka mida maqaarkaagu uu dibadda u baxo uu ku barafoobi karayay wax ka yar dhowr ilbidhaqsi gudahooda. kani muusan ahayn gurmad iska caadiyowne, waxa waa dagaal dhabar adaygeeda oo ay kula jireen qabowga, wakhtiga iyo weliba daalka daran ee ragaadiya cagahooda. 23 May waxay mar kale gaadheen jasiiradda Kotolniya, halkaasina waxoogaa ku hakadeen si ay iskugu habeeyaan. barafku weli muusan bislaanba inuu doonyo lagu dhex kaxeeyo, sidaasi daraaddeed waxay bilaabeen in iska ugaadhsadaan si ay sahadooda ugu kabaan, doontana ugu diyaariyaan inay gasho biyaha furan. muddadaas wakhtigooda intiisa badan waxay ku bixin jireen inay harkaha kala baxaan libaaxbadeedka, hagaajinta agabka iyo sidii u sii noolaan lahaayeennuna. toddobaadyo ayaa tegay, barafkiina
waxa uu bilaabay inuu cagowga goosku wuxuu cagowga koos dilaaco. ugu dambayntiina 18 luulyo biyaha ayaa bilaabay inay furmaan. wakhtigii ambabaxa ayaana la gaadhay kooxdiina waxa uu kala jabtay 2 qaybood. 7 nin oo hordhaca ayaana ka hormaray doonta nimiriga si ay jidka uga sii dhex saamiyaan meelaha uu barafku ku badan yahay si ay uga leexdaan, halka inta kale kooxda ka tirsanaydna ay daba socdeen meelo badan shiraacashadu macquulka miisanahaynba. sidaasi daraaddeed waxay markaasoo kale isticmaalayeen gacmahooga. meesha gacmahoodu ka shaqayn waayaanna doonta ayay dul saarayeen barafka kadibna dul jiidayeen. meeshii ay ku jiidi kari waayaanna waxay ka sugayeen intay dabeecaddu fursad ka siinayso. intii ay jidka ku sii jireen waxay la kulmeen hadhaadiga safarkii hore. manuusan ahayn sahay oo qurya town, balse 26 luulyo waxay heleen ninkii looga tegey gacanka fadayfaski. welina waxaa ku sugnaa goobtiisi cidlada ee loo xil saaray inuu joogo, isagoona ka sugaya calaamad kasta oo ka timaada dhinaca Edward. laakiinse arrinka welwelka weyn lahaa ayaa ahayd in ilaahay xilgaasi uusan arkinba wax raad ah haba yaraatee. markii aan yar hore sii socdeenna way gaadheen kabofaysoki. waxay heleen ninkii kale ee isna looga tegay halkaasi si ugu gurmuday Edward haddii uu soo laabto. isna weli halkiisii ayuunbuu fadhiyey isagoona u maamulay xeriddiisa sidii qof wakhtigu ka istaagay oo kale. laakiinse mar kale wax war ama raada oo ka soo yeedhay Edward muusan jirinba haba yaraatee. kooxdii gurmadkuna waxay maalin ku nasteen xeradaasi ka hor intaysan hore uga sii dhaqaaqin. markii ay halkaasi ka soo shiraacdeenna waxay dhex qaadeen markani biyaha furan, waxayna isticmaalayeen shiraac iyo gacmahooda labadaba. waxayna si xirfad leh uga dhex baxayeen jajabka barafka ee badda dul sabaynaya. ugu dambayntii 4 bishii Augusto waxay soo gaadheen halkii ay u socdeen oo ahayd jasiiradda Bernard. Alexander ayaa markaasi cagta saaray jasiiraddii uu Edward naftiisa iyo hantidiisaba u huray siduu ku gaadhi lahaa. jasiiraddu waxay u badnayd jarar barafaysan iyo dhagaxaan salaxya. marka laga reebo dhowr meelood oo siman waxay ahayd meel cidla oo dabayshu ragaadisay. balse wax yar kadib markay gaadheen gacanka Emma waxay heleen wax la yaab leh. waxay dhalo yar taasuna gudaheeda ay ku jireen warqad iyo khariirada. bilooyin ay raadkiisa gurayeen kadib waxay ugu dambayntii heleen dhaladan dhagaxaanta ku dhex jirtay oo ku qornaa farqoraalkii Edward ee aan lagu khaldami jirin. waxayna halkaasi taallay ugu dhawaa sanadhan iyadoona ku dhex badbaaday dabaysha iyo dhagaxaanta dhexdooda muddo aad u dheera. iyagoona adeegsanaya haddaba khariiradii Alexander, Nicafor iyo mid ka mid a xubnihii safarka ayaa u kacitamay inay soo raadiyaan halkii ugu dambaysay Edward uu deganaa. intii ay dhex jibaaxayeen barafka dilaacsan iyo dhulka qalafsan, Alexander ayaa si qalad u qiyaasay masaafo u qiyaasi waxaana ku dhex dhacay biyo qabooba ee Arctic-ga. laakiinse markiiba waa laga soo dhex saaray isagoona wada qoyan oo dhaxantuna dhuuxa ka gashay. raggiisii ayaana durtadiiba dharkii ka saaray oo xidhay kuwo kale si uu diiramad uga helo. inkasta oo arrintani ay qof kasta argagax ku rid lahayd, haddana iyaga ulamaysan muuqanba wax weyn. socodkoodiina way iska sii wateen. ugu dambayntii waxay gaadheen xeradii ku taalay darafka kale ee jasiiradda Bernard. Alexanderna waxa weelay wixii u socday oo ahayd xeradoodii, balse uu muusan helin sidii uu rajaynayay inuu helo. maysan jirin dad meesha joogay, manaysan jirin raadad iyo tallaabo ka hadhay, xitaa meydadku maysan arkinba meesha. waxa keliyaasi yaalina waxay ahayn hadhaadiga agabkoodii. meeshaas waxaa ku daadsanaa qalabkoodii cilmi baadhista, sanduuqyo ay ku jiraan muunado dhagaxaan iyo buug xusuus qora oo barafku qayb qariyey. Alexander ayaa xariiq kasta oo buuggaasi ku qornaa akhriyey, waxaana uu xaqiijiyey buuggaasi waxay warqadoodii hore tilmaamaysay. qoraalku waxuu sheegay in Edward iyo 3 saaxiibada ahaa ay soo gaadheen jasiiradda Bernard 22 bishii Julaay 1902, waxayna markaasi la yaabeen siday jasiiraddu hodan ugu tahay duurjoogta sida deer waqooyida, shimbiraha Arctic iyo weliba butiyada. siday qorsheynayeen waxay u muuqatay in ay ka heli karayaan deegaanka. toddobaadyadii ku xigay oo dhan waxay quudanayeen wixii halkaasi ka helaan, cuntaduna dhib kumaysan ahaynba ugu yaraan bilowgii hore. balse halkaasi ayuu ka dhacayba khaladkoodii ugu weynaa ee musiibada u horseeday. halkii ay kayd cunta oo muddo fog gaadhsi ay ka diyaarsan lahaayeen ama xoradooda ay sii xoojisan lahaayeenba, Edward waxuu hantidiisii oo dhan ugu khamaaray rajada uu ka qabo in markabkii Saarya uu dib ugu soo laaban doono awgeed. markii ay garwaaqsadeen inaanu markabku soo socon, waxayd run ahaantii xilli dambe oo xeedhiyo fandhaalka dhacay oo bishii Oktoobarna ay gabagaba tahay. rasaastiina ay ka dhammaatay, deeradii jasiiradda joogtana way ka hayaameen maadaamuu barafku xidhiidhsanaa bad ilaa beri. baddiina waxay bilowday inay gebi ahaanba baraf noqoto. markaasi aynu qaato go'aan ilaa maanta taariikhyahanada ku reebay fajac iyo layaaba. waxayna go'aansadeen inay jasiiradda ka baxaan oo dhinacaasi beriga u lugeeyaan. erayadii ugu dambeeyay Edward xusuus qorkiisa ku qornaa 26 Oktoobar 1902 waxay ahaayeen: maanta
waxaanu anbabaxnaa safarkii aanu dib ugu laaban lahayn dhanka koonfureed. sahaydaanu wadanaa waxayna hayn kartaa qiyaastii 14 ilaa 20 maalmood. dhammaantiina caafimaadkaygu waa mid aad u wanaagsan. intaasi ayaynu qoraalkugu istaagay fariin dambe iyo dardaaran kalena toona muusan jirinba, waxaana keliyata ka muuqatay deganaan iyo kalsooni xilli ay wajahayeenba xaaladii qarka u saarnaayeen dhimasho. alexander waxa uu 3 maalmood ku qaatay inuu jasiiradda gees ilaa gees uu u baadho, balse nasiib darro waxba muusan helinba. manaysan jirin wax raada uu muujinay wixii ku dhacay edward iyo raggiisii. waxay u ekeed inay dabaysha artigu ay gebi ahaanba tirtirtay jiritaankoodii. markii uu ku qancay inuu tallaabo kastoo jasiiradda ka mid u baadhay, alexander waxa uu qaatay go'aankii ugu adkaa, kaasuna ahaa in laiskaga laabto meesha. raggu naftooda ayay u soo biimeyn inay halkani soo gaadhaan, laakiinse edward way waayeen. cimilada artiga ayaana mar kale isbedelisay. alexander iyo raggiisii waxay u weecdeen dhanka koonfurta, manaysan jirinba wax calaamada ama xusuus qor gaar ah ay halkaasi ugaga sii tegeen. keliyata waxay doontooda u riixdeen dhinacaas iyo xeebta jasiiradda. taariikhdu markay 7 August 1903 markay taariikhdu ahayd 14 August waxay gaadheen xero hore oo ku taalay jasiiradda weyn ee Cotonia, waxayna halkaasi ku nasteen 3 maalmood. raggu aad bay runaantii u daalanayeen. kumanaan mayl ayayna soo dhex mareen dhulkaasi barafka ee dhimashada, iyaguna ugu dambayntiina marnaba aan helinba jawaabtii u soo baxeen ay u haraasanaayeen. manuusan ahayn uun daalkii iminay jidhkoo qoryaatee, waxay la liiteen niyajabka iyo quusta ay markaasi la kulmeen. alexander waxa uu go'aansaday inuu hal mar markiisii ugu dambeeyey baadhitaan ku sameeyo jasiiradaha waaweyn, isagoona rajinaya bal inuu arko bal wax raad ah uu muujinaya in edward uu si nolola uga baxay jasiiradda Bernant. laakiinse mar kale waxba muusan helinba. manaysan jirinba runaantii wax raad hooya oo ay dhaxanta ka galeen uu muujinayay inay halkaasi deganaayeen. wax raad gaadhi barafa xitaa dhala iyo fariin dambe muusan arkin. xilligii dayrta ayaana si xawaara lagu soo dhowaaday. barafkiina waxa uu bilaabay inuu mar kale isqabsado. biyo furnaay badduna way sii yaraanayeen. intaasi kadibna dhabacantii waxay ku khasbanaayeen inay ka sugaan ku dhowaad 2 bilood ilaa uu barafku ka adkaanayo, si ay mar kale gaadhi barafyo ugu safraan. ugu dambayntiina horaantii bishii Disembar barafkii ayaa si fiican u adkaaday, waxayna bilaabeen inay galaan wejigii ugu dambeeya safarkooda. markii gaadheen tuulada Kasaajiya waxaa dhacay runaantii arrin la yaab leh. alexander waxa uu qabowga barafka dhexdiisa kula kulmay gabadhii u doonanayd oo barafka dhexdiisa ku sugaysa, waxayna soo dhex jabaxday jid aad u dheer si ay ula kulanto, iyadoona hubinba inay nool yihiin iyo inay gaadheen jasiiradda Bernant iyo in kale. waxay soo dhex jabaxday jid aad u dheer si ay ula kulanto, iyadoona hubin weliba inay nool yihiin iyo inay gaadheen jasiiradda Bernant iyo in kale. waxay halkaasi ku sugnayd wejigeeda laga dareemayo dhibka qabowgu leeyahay. waxaanu u siday warar aad u naxdin badan. waxaanu u sheegtay in akaadimiyadda saynisku ay gebi ahaanba ka rajo dhigtay, waxayna ka qoosteen nolosha safarkii ugu jiray. waxaana jirtay hadal ku saabsan in howlgalka dhammaanba bilow ilaa dhammaad la joojiyo, balse fariimahaasi ayaan marnaba soo gaadhi jira alexander. toddobaadyo badan cidina maysan ogeyn inuu weli nool yahay in kale. nasiib wanaagsi xaalku sidaasi muusan sii haynba. uu 26 January 1904 alexander wuxuu cagta dhigay magaalada Yokotaski, isagoona warbixintii uu siday si degdeg ugu gudbiyay akaadimiyadda St. Petersburg. warbixintaasina waxuu dhabaantii ku caddeeyey inuu edward dhabaantii u gaadhay jasiiradda Bernant, uuna halkaasi ku noolaa muddo ka badan 3 bilood. kadibna sabab aan weli si buuxda loo garanayna awgeedo ayuu jasiiraddaasi isaga baxay. waxaana la rumaysan yahay inuu ku dhex geeriyooday barafka, isagoon isku dayaya inuu dhulka beriga soo gaadho. markii xogtaasi la helay, wargeysyadu waxay daabaceen fariintii ugu dambeysay edward ee ku qornayd buuggiisa xusuus qorkiisa oo dhammaystiran. saynisyahanaduna waxay bilaabeen inay si dhuun daloosho u daraasayaan waxyaabihii uu alexander soo helay. dadweynuhuna waxay markaas u baroorteen geerida nin noloshiisa u horay baadigoobka dhul laga yaabo inuusan markiisii orabi jirin. dhinaca kale alexander iyo raggiisii waxay maqnaayeen intay ku guda jiraan safarka muddo aad u dheer ilaa iyo heer ay dadkii dalkooda ka qoosteen oo iska ilaabeen. balse markii dib u soo laabteen, warkiisu wuxuu qabsaday meel kasta, magaciisuna waxuu ku baahay meel walba, waxaana lagu sifeeyey inuu hogaamiyey mid ka mid ah howlgalladii ugu dhiiranayay abid ruushku ka fuliyo gobollada qaboobaha daran ka dhaco ee Arctica. safarku wuxuu dib u soo laabtay isagoona hal qofina waxba kaga noqon. waxaanu sidii nuqullo cilmiyeed, xogtii khariiradaha iyo weliba aqoon qoto dheer oo ku saabsan xaaladaha halista ee jasiiradaha New Siberian. wax kasta kasaguna waxa uu maamuus u noqday safarkani edward iyo hayaankiisii dheeraa, balse nasiib darro ku soo gabagaboobay barafka arxanka daran ee Siberian dhexdiisa. sidaasi daraaddeed sanadkii 1906 alexander waxa la guddoonsiiyey billadda loo yaqaano Constantine Medal, taasoona ay sharafta ugu sarraysa ee uu bixiyo ururka juqraafiga ee Ruushku.
haddii aad ilaa halkani soo gaadhay aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinaya wakhtigaaga qaaliga shaashadda waxa saaran iminka muuqaalkani oo la mawduuca isla qisadani keliya guji tan qisadeenna tan xigtana salaam.